السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتين كسور هذا القناة كنا قبل هدي أنا قعد سبتها سبسكرايب نود هدا هرنو الجوكتنا لايك تشيرت كومنت وإنه ديرجلين ما أنت وحن كهل دونا عذر كل يراهده ملاسما وسيدا أوجيتان ومن مدوجة uga soo baxa dhabanada inta badan dumarkeena Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan rag qaarkiin inay ku yeeshtaan dhabanada laakiin aad waxa ugu badan mostly dumarkeena Soomaaliyeed waxaana sababi kara marxalado kala duwan oo soo wajaha xilliga noloshooda fast hotor maxaa keena cudurkaani melasma la yiraahdo waxaa keena waxyaabo fara badan ay kamid yihiin hormonal change waxaa kamid ah hormoonada jirkaada oo isbedela marka ay hormoonka jirkaadu isbedelaan waad yeelan kartaa wuuna sababi karaa inaad yeelato melasma waxaana kamid ah xilligaas oo hormoonka isbedelayo xilliga hooyada ee uurka leedahay sidaan wada ogsoonahay waxa isbedelaya marxaladaheeda oo dhan waxa isbedelaya hormoonadeeda oo dhan inta badan waxay la soo gudboonaadaan xilligaas uurka siiba bilaha saddexda bil ee ugu dambeeysa uurkeeda ayaa maxay ahayd dumarka Soomaaliyeed inta badan soo wajahan sidoo kale waxa keeni kara vitamin B-ga qayb kamid ah oo ku yaraada jirkaada sidoo kale waxa keeni kara qoraxda hadaadan qoraxda wajigaada wax ka difaacadan u sameeynin waxa oo aadna qoraxda u kulushahay xilliga qoraxda kulushaana aad tahay qof socda wajigaada wuu yeelan karaa haarahaas mid madowga ah ama melasmaha sidoo kale waxa keeni kara stresska wuu keeni karaa wuuna sababi karaa inuu dhabanadaada mid madow yeeshtaan sidoo kale waxaa sababi kara maxay ahayd saan hore usoo sheegnaba faytamiinada jirkaada uu ku yaraado faytamiinada jirka qofka markuu ku yaraado rag iyo dumar taasi way ka siman yihiin haddaba sideebaa looga hortagi karaa ama lagu daweyn karaa haddaaba yeelataba fast hotor dhakhtarkaaga la tasho oo dhakhtarada maqaarka la tasho second waxaad isticmaashaa sunscreen kareemada la yiraahdo aad ay ugu wacan yihiin aad ayeen u baabi'iyaan sidoo kaleeto aloe vera gel aad iyo aad ayuu maxay ahayd kaa caawinaya arrintaani sidoo kaleetana waxaad isaga difaacin kartaa xilliyada aad qoraxda ku bixaysid inaa wajigaada qoraxda aad u sameyso waxyaaba ka difaaca qoraxda si aysan kuu soo gaarin kulka faraha badan ee qoraxda kaasna waxaa sameyn kartaa kareemka qoraxda ayaa marsan kartaa marka inta badan dumarkeena kuma baraarugsana oo maxay tahay inta badan xitaa markay uurka leeyihiin ilaa ay ka baxaan dumar waxa arkaysaa intaasoo sanado isaga yaala waana foolxumo wajigaada mar walba ahaa waa baasaboorkaada soo dhawaada gabdho insha Allah taala intaan in ka badanna waa idiin soo gudbi doonaa